وانكو سلام مدني khudbada beenta aad akhrinaysa aniga miid ayaanu maqlay maxaa kugu kala fi sheeg dadkaas lacag ayaan siiyey dhar ma haystaan meelay seexdaanne ma haystaan adigana waxaad samaysay been inaad u sheegto waa sheeg mudane adiga run ahaantii haddii aad dadka masaakiinta lacag siin lahayd oo dhihi lahayd guryihiina ku dhista arrin fiican ayay ahaan lahayd laakiin waxaa shakina geliyay annaga inaad masaakiinta guryahooda aad ka baxdhaadid damac maa kaa soo galay mise dhulkaadna rabtaa inaad la wareegtay ii sheeg mudane waan ku fahmay famil walba 1 milyan ayaan ogolaa adiga imisaa kuugu filan 2 milyan 1 bilyan okay 10 bilyan markii hore waan kaa shakiyey oo keliya For more interesting videos, visit mysomali.com. inaad adiga ka dambaysid ها aniga ayaa ka dambeeyey ujeedadeedu waxay tahay dhulkan inaan loo reebo ya adiga maxaad samacsan tahay adiga dadka masaakiinta ah guryahooda maad baabi'inaysaa taas weli isma dhihin aniga waan ogahay dadka inaanay aamanayn booliskana ii aaminaynin laakiin sheekadan ad adiga bilowda waxaa igu ballanaa inaan soo afjaro oo weliba meydkaaga aan ku soo gabagabeeyo taas waa ballan aniga aan kaa qaaday marda waa ballan inaan wacdalo ku tuso warba la socotaa qofkaan aniga ahay wasiir ayaan ahay lacag ayaan haystaa awood ayaan leeyahay marka adiga maxaad igula dagaalami kartaa waan ogahay hanti lacag hub ciidan intaba inaad haysatid laakiin waxaad ilowsan tahay aniga inaan haysto dadkan masaakiinta ducadooda inta aan watana adiga iska dayay madaxweyne xataa inuu hor istaagi karo waana ballan filimkaaga inaan soo afjaro wasiir isku sheeg si fiican u dhegaysa waxa igu ballan dadkan dhulkooda aad ka gubtay inaan guryahooda 6 bilood gudahooda ugu dhiso ballan oo keliya ma ahee waa sharad adigaan kula galayo